Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Waa salaamay dhammaan asxaabta. Casharkeenu maanta wuxuu ku saabsan yahay how to activate your Windows, sida u active garayn lahayd Windows-kaaga. Qaab fara badan baa loo active gareeyaa, laakiin qaabkan maanta halkan ku arki doonaa KMS Autonet website la yiraahdo. Horta intaynan active garayn waa maxay problemska uu leeyahay Windows markaan active garaysnayn. Waxaad aragtaa display-gan ama screen-kan kuu muuqda kama bedeli kartid background-ka hadday fadlan ka bedel oo personalize tagno oo isna background iska bedela halkan casaan ku saaray waa aragtaa you need to activate Windows before you can personalize your PC intaadan waxaad u baahan tahay inaad active garaysid Windows intaadan wax ka bedelin ama background-nada tan iyo bedelin kuwana waa ka cadaan buu ka saaray waxa ka bedeli kartid ka dhigan tahay marka hada waynu ka noqonaynaa website-ka waxa la yiraahdaa description-ka idin dhigi doona kmsauto.info website-kaas ayaa kasoo degsanaysaa programka dabeed waxaad oranaysaa download dabeed start ayaan leenahay waan isku soo laabanaynaa intuu noo dhammaystirayo waa inoo dhammaystiray dabeeto meesha uu ku jiro ayaad tegaysaa aniga hadda halkaas igu jiraa dabeeto waynu extract garaynaynaa extract KMS Autonet ayaa leedahay dabeeto waa ku dhufanaysaa misana kanaan sii extract garaynaynaa passwordku waa Windows idinku halkaas idin kasoo muuqan doonaa Windows weeyaan okay ayaan leenahay wuu noo extract garaynayaa markuu noo extract garayo waynu ku dhufanaynaa waxaynu dooranaynaa kaa hoose ayaynu waxaynu odhanaynaa run administrator yes ayaa leedahay software-ku waa kan qaabkan uu kugu soo bandhigayaa qaabkan uu kugu soo saarayaa activation information labada qaybood buu qaybsamaa qaybta sare ayaad ku dhufanaysaa activation ayaa laba qaybood ku soo saaraya inaad active garaysid Windows oo halkaynu u soconay hadda irto inaad active garaysid Windows Office oo ah casharka le aynu ku qaadan doono casharkeena xigu noqon doonaa haddaynu doorano inaynu active garayno Windows activate Windows ayaad ku dhufanaysaa dabeeto running ama shaqadii buu bilaabayaa wuu activate garaysmayaa halkana indhaha ku haya isbedelaysaa mar dhow continue ayaad leedahay halkan indhahaynu ku haynaynaa si aynu u aragno marka activating wuu wadaa shaqadii hadeerto waa ka halkan way ka qaadmatay hadeerto marka yes ayaad leedahay KMS and host has been successful and deleted task schedule activation task has been carried to Windows every 10 days marka saas already noogu active garaysan yahay marka haddaynu ka noqono wuu noo active garaysan yahay screen-keena waynu ka bedeli karnaa waxaynu u baahano haddaynu ku tagno personalize haddaynu dhahno halkan calaamad way naga qaatay highlighting-kiina xagga way naga qaadmay waynu ka bedeli karnaa noocaan doonaynu ka dhigan karnaa waad aragtay noocaasina hadda ka dhiganay marka casharkeenu wuxuu ku saabsanaa how to activate your Windows si yaro fudud runtii dad bay ku dhib badan tahay laakiin waa wax yaro fudud easy ah oo website-kaasi gelaysaa kana active garaynaysaa marka casharkan intaas ku saabsanaa inta isku soo noqon doona casharkan iyo casharka loo xiisa leh assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu